gabadh ayaa waxa ay guursatay nin magaalo ka ahaa amiir. gabadhaasi waxay ahayd nin aad u jecel amiirkaasi, daacad bay u ahayd, wax walbana way u qaban jirtay ilaa uu amiirkii ku qancay dhaqankeeda. iyadoon wax dembiya ka gelin oo aad u ixtiraami jirtay ayaa waxa ay isqabeen muddo 10 sano ah. 10kaasi sano aad ayay isu ilaalinaysay oo weligeed ma ayna khiyaamin, isaga laftiisuna muun xumaynin maadaama ay gabadh wanaagsan tahay, dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda wanaagsan iyo tarbiyadeedaba uu ku qancay. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday wiil ka tirsanaa dadka magaaladaasi ku noolaa ayaa waxa uu sameeyay qaladkaasi oo ninkii amiirka ahaa aad uga xanaajiyay. ninkii amiirka ahaa ayaa waxa uu go'aan ku qaatay inuu wiilkaasi ku rido xero ay aydi ku xidhnaayeen ay weliba dad cuno ah oo gaajaysan. ninkii aydi dad cunka ahayd ayuu u xareeyay, halkiibaana lagu cunay. intii kadib wuxuu go'aan ku qaatayba si ay dadka qaryada degan ay uga cabsadaan in qof walba oo dembi gala uu halkaasi ku ridi doono. dadkii qaryada deganaa ayaa go'aankaasi cusub aad uga warwaray, badankoodu ma ay rumaysan oo waxay is yiraahdeen kolley wuu nuga cabsiinayaa oo waxaan wax macquula ma aha. balse xaakimkii waa uu dhaqan geliyay go'aankiisii oo si ay dadka tuulada degan aad uga baqaan wuxuu sameeyay nin wasiirkiisa ahaa oo qalad sameeyay ayuu aydaasi dad cunka u xareeyay. waa sida ninkan hadda madaxweynaha ka ah waqooyiga Kuuriya ee ninka wasiirkiisa ah madfac ku riday. dadkii waa ay yaqiinsadeen maadaama oo wiil dhalinyaro hortooda ay loogu xareeyay oo halkii aydu ku cuntay oo haddana nin wasiir ah lagu riday aydaasi. dadkii shacabka ahaa ayaa aad uga warwaray oo aad uga baqay, qof walibana wuxuu yiri haddii aad qalad gasho halkaasi ayaa lagu ridi doonaa kolley. haddaba arrintii ugu yaab ka badneed waxa ay ahayd ninkii xaakimka xaaskiisa ayaa qalad yar ku dhacday. qaladkaasina weliba ma ahayn mid ay ulakac u samaysay, waa qalad ka dhacay buu ahaa. qaladkiina wuxuu gaadhay bulshadii magaalada deganeed oo magaalada ayaa la isla dhexmaray. ninkii wasiirka ahaa xaaskiisa ayuu qaladkaasi ka dhacay. ninkii wasiirka ahaa arrinkaasi aad ayuu uga warwaray maadaama ay xaaskiisa tahay, welibana ay ahayd gabadh aad u wanaagsan. balse waxa uu go'aan ku qaatay inuu iyadana halkaasi ayda ugu rido, wuxuuna u sheegay inuu ciqaab ahaan aydaasi ugu xarayn doono, halkaasi lagu cuni doono. gabadhii ayaa waxay ku tiri maadaama aad go'aansatay inaad aydaasi ugu xarayso aniga oo xaaskaagii ah oo xabiibtaadii ah oo muddo 10 sano ah aad qabtay oo weliba aan wax dembi aadan igu arag inaan ixsaan ku sameeyo mooyaane, qaladkan aan sameeyayna uusan ahayn qalad saa u weyn. haddaba ku odhan maayo idaah, balse waxaan kaa codsanayaa inaad muddo 10 cisho ah aad jaanis siiso. 10ka cisho kadibna aad igu fuliso. waxa uu yidhi malaha reerahoodii iyo asxaabteedii ayay soo macalsalaameynaysaa, wuxuuna ku yidhi codsigii waan ka aqbalay. markii uu codsigeedii ka aqbalay ayaa waxa ay toos u degtay goobtii ayda lagu hayay ee lagu xanaanaynayay, waxaana ka codsatay ninkii washmaanka ahaa ilaalinayay inay muddo 10 cisho ah ay aydaasi u shaqayso, waxaana ku amartay inuu arrinkaasi cidna ku wargelin muddadaasi ay ayda xanaanaynayso. ninkiina arrinkii waa uu ka aqbalay oo uu ogolaaday. muddadii 10ka cisho ahayd ayda si fiican ayay uga warhaysay oo way la joogtay oo mar walba cuntada ayay u keenaysay. waxay u dhaqaalaysiisay muddadaasi 10ka cisho si aan hore aydaasi loogu dhaqaalaysiin. muddadii 10ka cisho ahayd markii ay u dhammaatay ayaa ninkii xaakimka soo xaadiriyay gabadhii. dadkii tuulada deganaana meeshii way ka soo xaadireen si ay u arkaan arrintan yaab kale meesha ka dhacaysa. markii dadkii soo xaadireen ayaa ninkii ilaaliyaha ahaa u yeedhay, wuxuuna ku amray inuu gabadhaasi aydaasi dad cunka ah ee gaajaysan uu u xareeyo gabadhaasi si ay u mutaysato dembigii ay gashay, si ay uguna waana qaataan dadka tuulada degan. gabadhii ayaa lagu xareeyay dadkii oo daawanaya, balse aydii way cuni waayeen. way si garab fadhiisatay, aydiina way si garab fadhiisteen. ninkii xaakimka wuxuu yiri malaha aydu ma gaajaysna ee hadda way cunayaan. wax la sugo meesha waa lagu caajisay, wuxuuna yidhi caawa markay gaajoodaan ayay cuni doonaan, caawa ha la barido. markii waagii bariyay ayaa waxa uu yiri bal meydkeedii soo arag. markii uu tagay waxa uu arkay iyadii oo aydii iskaaga hurda, aydiina wax xagtina xataa aysan u geysan. yaab wuu fajacay, wuxuu yiri bal caawana ha la barido. habeenkii labaadna way la bariday, aydiina wax cunto ah lama siin balse ay u gaajoodaan ay gabadhaasi u cunaan. way cuni waayeen aydii, iyadiina way iska dhex seexatay, habeenkiina way la bariday. subaxii dambe ayaa ninkii xaakimka u yimiday, wuxuu arkay gabadhii caafimaad qabta oona wax dhibaato la gaarsiin. kadib ayaa waxa uu ku yidhi maxaad ku samaysay ayda ay ku cuni waayeen muddo 2 habeen ah iyagoo weliba gaajaysan. kadib ayaa waxay ku tiri maqal xaakimow, muddo 10 cisho oo keliya ayaan aydaasi xanaaneeyay, abaalkaygiina way garteen oo imay cunin, balse adiga 10 sano oo dhan baad soo qabtay, wax walba oo doontidna waan ku sameeyay, wax dambi ana kaamaan gelin muddadaasi 10ka sano. dambi yar oo sameeyay ayaa waxa uu ilowday wanaagii iyo ixsaankii aan ku soo sameeyay, balse aydaasi xayawaanka ah muddo 10 cisho oo kaliya aan xanaaneeyay ayay ilaawi waayeen oo ay cuni waayeen, weliba iyagoo muddo 2 maalmood gaajaysnaa. ninkii xaakimka ayaa waxa uu ogaaday go'aankan uu qaatay inuu ahaa mid qaldan, habooneedna inuu ka fiirsado. gabadhii sidii ayuu ku sii daayay oo iska fasaxay. haddaba xikmadda qisadan ku jirta waxay tahay inuu qofku uusan ku degdegin xukunka dadka
iyo qof wanaag badan kuu sameeyay inaadan ku ilaawin oo kaga xanaaqin hal mar uu qalad yar ka galo isbarbar dhig qaladkan uu ka galay iyo wanaaggii uu ku soo sameeyay waxaan idin rajaynayaa inay qisadani aad idin qancisay faa'iidada ku jirtana aad kala baxdeen haddaba qof waliba oo daawaday waxaan ka codsanayaa inuu sii sheer galayo